Assalaamu calaykum asxaabta qiimaha badan. Ma ogtahay in 38 maxbuus ay ka baxsadeen xabsi si gaar ah loo ilaaliyo? Xabsi loo dhisay si aysan qof bini'aadam ahi uga baxsan, balse haddana ay ka baxsadeen 38 qof. Ka hor intaynan sheekada gelin, like inoo saar muuqaalka oo subscribe saar kanaalka. Mahadsanid. Xabsigan oo loo yaqaano Maze Prison waxaa markii ugu horreysay la aasaasay sanadkii 1971. Waxaa sidoo kale loo yaqaanaa xabsiga wareerka sababtoo aad bay u adag tahay in xitaa lagu fikiro in laga baxsado. Derbiyada xabsigan aad bay u dhumucban yihiin, waxayna gaaraan dherer ahaan 15 feet, iyadoo dushiisa sare lagu xiray silig aad u adag. Laakiin sanadkii 1983 waxaa ka baxsaday xabsigan iyagoo jabiyey nidaamka waardiyayaasha 38 maxbuus. Haddaba aan eegno qorshayaashii iyo xeeladihii cajiibka badnaa ay adeegsadeen iyo sida layaabka leh ay uga baxsadeen xabsigan. Xabsigan waxaa lagu dhisay mid ka mid ah xerooyinka tababarka militariga ee ku yaala Britain. Sida la sheegay, waxaa loo dhisay si loo xakameeyo dhibaatooyinka dambiyada ee ka dhacayay Britain iyo Ireland. Sanadkii 1975 waxaa la xiray koox ka tirsanaa ururka IRA, Irish Republican Army, kaas oo loo arkayay inuu yahay dhaqdhaqaaq amni oo aan rasmi ahayn. Markaas kadib ayaa la qorsheeyey oo la dhisay xabsigan Maze si uu ahaado mid amnigiisu sareeyo. Wuxuu ka koobnaa qolal aad u fara badan iyo dhismooyin badan, waana xabsi aad loo ilaaliyo. Xitaa maxbuuska looma ogoleen inuu ka guuro qolkiisa una wareego qol kale. Sida aad qiyaasi kartaan, xabsi waxaa ka buuxay waardiyayaal amnigiisa ilaaliya. Waardiyayaashu waxay ka warhayeen dhammaan waxyaabaha ka socda gudaha qolalka xabsiga. Waxa kale oo jiray xarun dhexe oo kontarool oo ku dhex taala xabsiga, taas oo ahayd meel si buuxda loo sugo amnigeeda. Daaqadaha iyo albaabadu waxay ka samaysnaayeen bir adag si aan looga fikirin in la jebiyo. Tusaale ahaan, haddaad si mucjis ah uga soo baxsato qolkaaga, waxay ahayd waxaan macquul ahayn inaad dhaafto xarunta kontaroolka iyo waardiyayaasha xerada. Laakiin sanadkii 1983 waxaa dhacay wax lala yaabo. Yaabkii ugu weynaa ayaa dhacay. Kooxda IRA, Irish Republican Army, waxay ahaayeen dad naftooda u arkayay inay yihiin halyeeyo qaran. Waxay aaminsanaayeen in xabsiga Maze in lagu hayo ay tahay qalad weyn. Sidaas darteed, hadafkooda rasmiga ah wuxuu noqday sidaan uga baxnaa xabsigan si aan xor u noqono. Nasiib wanaag, kooxdaas waxaa hogaaminayay nin la yiraahdo Larry Marley. Larry Marley ma ahayn qof xabsi ku cusub oo markaas uun la soo xiray. Hore ayaa loo xiray sanadkii 1975 ayadoo ay qabteen ciidamada militariga ee Britain. Sababta loo qabtay waxay ahayd in uu mar kale ku jiray xabsi kale, isla markaana asagoo sugaya maxkamad uu abaabulay baxsad ay ku baxsadeen isaga iyo 8 qof oo kale oo ka tirsan IRA. Isaguna wuxuu ka mid ahaa dadkaas baxsaday. 2 sano kadib ayaa markaas la qabtay, waxaana lagu soo celiyey isla xabsigii Maze. Laakiin markaas ma uusan toobad keenin. Wuxuu weeraray mid ka mid ah waardiyayaasha xabsiga, wuxuuna isku ekaysiiyey waardiyahaas isagoo xirtay dharkiisa si uu ugu baxsado. Wuxuu isku dayay inuu baxsado, laakiin qorshuhu wuu fashilmay. Si degdeg ah ayaa loo qabtay, waxaana lagu soo celiyey xabsiga. Markii Larry Marley loo wareejiyey qol cusub oo xabsiga ku yaala, halkaas ay qorshihiisa ka sii ambaqaaday. Wuxuu heshiis la galay 3 maxbuus oo la xiran si ay u wada baxsadaan. Waxay isla bilaabeen qorsheynta baxsiga. Marley wuxuu sidoo kale u sameeyey koox kasta oo ka tirsan IRA hogaamiye gudaha xabsiga ah si ay qorshuhu ugala qayb qaataan. Wuxuu ka amray dhammaan kooxahaas inaysan seegin wax xog ah, sababtoo ah wuxuu doonayay inuu si buuxda u fahmo qaabka dhismaha iyo nidaamka xabsiga Maze. Hadafka ugu weyn ee kooxda IRA wuxuu noqday sidii loo heli lahaa naqshadda dhismaha xabsiga, waayo qorshahaasi wuxuu ahaa mid ka mid ah kuwa ugu adag maadaama maamulka xabsigu uu si weyn u qariyay macluumaadkaas oo aan la siin jirin qof maxbuus ah. Laakiin waxaa timid fursad markii qaraabada maxaabiista loo ogolaaday inay soo booqdaan. Waxay maxaabiistii fursad u heleen inay si dhow ula xiriiraan waardiyayaasha, taasina waxay u suurtagelisay inay si tartiib tartiib ah u helaan xog ku saabsan qaabka dhismaha gudaha uu u samaysan yahay. Kooxda IRA, sidaan hore kuugu sheegay, waxay naftooda u arkayeen inay yihiin geesiyaal qaran, waxayna diidi jireen inay xirtaan dharka rasmiga ah ee maxaabiista. Arrintaas waxay keentay khilaaf joogto ah oo ay la yeesheen waardiyayaasha iyo xitaa maxaabiista kale. Laakiin sanadkii 1976 maamulka xabsiga wuxuu si xoog ah ugu qasbay dhammaan maxaabiista IRA inay xirtaan dharka xabsiga. Maxaabiistu way diideen iyagoo leh, anaga maxaabiis caadi ah ma nihin, mana la mid nihin dadka dambiyada dhabta ah galay.
markii dambe waxay bilaabeen rabshado iyo mudaharaadyo gudaha xabsiga ah si ay uga hortagaan go'aankaas. Maxaabiista IRA waxay bilaabeen inay si ula kac ah u shaqeeyaan xabsigooda si ay uga dhigaan xabsiga meel falxun aan la xamili karin in lagu noolaado. Maamulka xabsigu markii ay arkeen fowdada iyo qaska socda waxay amar siiyeen waardiyayaasha, waxay dhaheen iska daaya, ha faragelinina, ugu dambeyn way daali doonaan oo way joojin doonaan dhibkan. Maalmo ayaa ka soo gudubtay, markaas ay maxaabiista IRA bilaabeen inay is yiraahdaan haddii aan sidan u sii wadno mudaharaadka, xiriirkeena waardiyayaasha wuu xumaanayaa, taasina waxay adkeyn doontaa qorshaheena baxsiga. Markaas ay go'aansadeen inay beddelaan dhaqankooda, iskuna dayaan inay si degan oo dabacsan ula macaamilaan waardiyayaasha si ay kalsoonidooda u helaan. Dabcan maxaabiistan IRA aad bay u caqli badnaayeen, ma aysan bilaabin qorshaha baxsiga isla markii uu xiriirkooda wanaagsanaaday. Waxay muddo dheer si tartiib ah u dhisayeen kalsooni. Waardiyayaashii markii ay arkeen in anshaxa maxaabiista uu hagaagay, waxay bilaabeen inay kalsooni ku qabaan. Xitaa waxay bilaabeen inay u sheegaan maamulka in dhaqankoodu isbedelay oo wanaagsan yahay. Kasako waardiyayaasha, qaar ka mid ah maxaabiistii kale ee xabsiga ay sidoo kale bilaabay inay kalsooni siiyaan kooxdan IRA, waxayna oggolaadeen inay qabtaan shaqooyin gaar ah oo muhiim ah, sida ka shaqaynta xarun caafimaad oo ku taala gudaha dhismo si gaar ah loo ilaaliyo oo ay askar militari ah ka howlgalaan, iyo nadiifinta xarumaha kantaroolka. Kadib muddo dheer oo ay shaqooyinkaas ku jireen, waxay heleen xog aad u badan oo qiimo leh. Tusaale ahaan waxay ogaadeen goorta la damiyo kamaradaha ilaalinta ama CCTV-ga iyo dhaqdhaqaaqyada waardiyayaasha iyo meelaha nugul ee xabsiga. Waxay ogaadeen sidoo kale goorta waardiyayaasha shaqada bilaabaan, goorta ay baxaan ama ay isbedelayaan, iyo goobaha saxda ah ay ku yaalaan qalabka digniinta ama alaarmiyada gudaha xabsiga. Toddobaad gudihiis, kooxdaas waxay awoodeen inay helaan 6 bistooladood, meesha ay ka heleen cidimo ogeyn. Wax walba waxaa loo sameeyey si qarsoodi ah, waana sir kaliya u dhaxaysay xubnaha kooxda. Markay fikir dheer sameeyeen, waxay ku qanceen inay ka boodaan derbiga dheer ee xabsiga, dhererkiisuna yahay 18 mitir. Laakiin arrintaas waxay ahayd mid aan macquul ahayn. Dusha derbiga waxaa ku wareegsanaa siligyo bir ah oo aad u af badan. Sidoo kale ma haysan qalab ay god ku qodi karaan, marka xitaa in ay tunnel sameeyaan ma suurtoobayn. Laakiin waxaa jiray hal fursad oo keliya ay ku baxsan karaan. Waxay ahayd gaariga cuntada. Waxay arkeen in gaarigan uu si xor ah u maro dhammaan dhismooyinka gudaha xabsiga. Ma jirto waardiye baara ama kamarado ku xidhan meesha uu maro. Markay arkeen arrintan muhiimka ah, waxay go'aansadeen inay qorshaha baxsiga si rasmi ah u fuliyaan. Bisha September 1983, waxay si gaar ah u doorteen maalinta Axadda sababo muhiim ah dartood. Ma jirin booqashooyin qoysas ah, taasoo ka dhigay in jawigu aad u degan yahay. Tirada waardiyayaasha shaqaynaysay maalintaas aad bay u yarayd. Markii waardiyayaashu ay hubiyeen in maxaabiista ay dhammaantood ku sugan yihiin gudaha qolalkooda, waxay dareemeen kalsooni, waxayna go'aansadeen inay yara seexdaan. Markay waardiyayaasha gudaha xabsiga ay hurdeen, kooxda waxay bilaabeen qaybtii ugu horreysay ee qorshaha baxsiga. Qaybtan waxaa hogaaminayay Brendan McFarley. Shaqadiisu waxay ahayd inuu si taxaddar leh ula socdo dhaqdhaqaaqa waardiyayaasha gudaha xabsiga. Wuxuu u baahnaa inuu helo 12 funaanad iyo dareeska waardiyaha, laakiin ma ahayn darees kasta. Wuxuu si gaar ah u xushay cabirka ku habboon xubnaha kooxda, mid dheer, mid gaaban, mid caato ah, iyo mid buuranba. Wuxuu eegayay sida jirkoodu yahay si dareesku ugu habboonaado qof walba. Qorshuhu wuxuu si rasmi ah u dhaqan galay markii Brendan uu dalbaday mashiinka nadiifinta sagxadda xabsiga. Waxay horay ugu heshiisay kooxdiisa in aan la dhaawicin waardiye, inkastoo ay haysteen 6 bistooladood, balse kaliya in la cabsi geliyo ay ku heshiiyeen. Markii mashiinkii la keenay, waxay qabteen 4 waardiye, bistoolado ay ku cabsi geliyeen, waxayna ka qaateen dareeskii waardiyaha oo ay xirteen si ay isugu ekaysiiyaan waardiye dhab ah. Dabadeedna 4 ka mid ah waardiyayaashii la qabtay ayaa lagu xiray gudaha xabsigii, cid kalena ma ogeyn, sababtoo ah dhismooyinka xabsigu way kala go'naayeen. Sidaas darteed waardiyayaasha kale kama aysan warhayn waxa socda. Wax walba si habsami leh bay ku socdeen, laakiin hal caqabad baa jirtay. Maamulaha xabsiga wuxuu ku jiray gudaha xafiiskiisa, halkaas oo sidoo kale ku yaalay qalabka digniinta haddii ay dhacdo xaalad degdeg ahna uu taaban karo. Taas waxay la micno tahay in haddii uu xafiiska ka soo baxo, isla markaana uu arko wax khaldan, uu si degdeg ah u taaban karo alaarmiga. Laakiin qofkii qorshaha baxsadka ahaa dhammaystiray wuxuu ahaa Jerry Kelly, oo si toos ah ugu galay xafiiska maamulaha isagoo bastoolad ku haya madaxiisa. Wuxuu ku yidhi, ha hadlin, ha samayn wax cod ah, haddii kale waad ka qoomamayn doontaa.
isagoon wax rasaas ah ridin ayuu cabsi geliyey. Wax walba si wanaagsan ayay ku socdeen, laakiin si lama filaan ah wax baa dhacay. Mid ka mid ah mas'uuliyiinta xabsiga ayaa u soo dhaqaaqday xafiiska maamulaha. Markay gudaha gashay, waxay si lama filaan ah ula kulantay Jerry Kelly oo bastoolad gacanta ku hayay. Jerry markiiba bastooladii ayuu riday. Laba rasaas ayuu riday, laakiin nasiib wanaag midna ma haleelin maamulaha. Waxay ku dhaceen dhinaciisa. Markaas maamuluhu si degdeg ah ayuu u garaacay alarmiga digniinta, taas oo ahayd habka kaliya ee lagu ogaan karo baxsigooda. Jerry wuu sii waday hanjabaadda, wuxuu dadkii ku handaday bastooladiisa, wuxuuna ku xidhay mid ka mid ah qolalka ay ku xiran yihiin waardiyayaasha. Tirada waardiyayaasha la qabtay waxay gaartay ilaa 12 waardiye. Kooxdii IRA waxay qaateen dharka waardiyayaashaas, wayna xirteen si ay ugu ekaadaan waardiye dhab ah. Markaas ay si cajiib ah uga baxsadeen gudaha xabsiga. Dibadda ayay tageen, waxay sugayeen gaadhiga cuntada oo sidaad xasuusato uu ahaa midka kaliya ee aan si adag loo ilaalin. Markuu gaarigu yimid, darawalkii baabuurka wuxuu garanayay wejiyadooda maadaama aysan ku cusbayn, laakiin waxay bastoolad saareen madaxiisa iyagoo ku leh kuma dhaawici doono, kaliya noo qaad meesha aan rabno. Laakiin saaxiibayaal kama aysan bixin dhammaan xabsiga, weli waxay ku jireen xarunta dhexe ee xabsiga oo ah meel u dhexaysa gudaha iyo derbiyada dibadda. Waxaa ka soo horeeyay 3 albaab oo bir ah oo waaweyn. Si ay uga gudbaan, waxay u baahnaayeen inay galaan qolka kontaroolka ee laga maamulo albaabadaas. Markay meesha ku sugnaayeen, ciidamada waardiyada ayaa isku dhex yaacay. Waxayna u malaynayeen in ragga bastoolada wata ay yihiin ilaalada rasmiga ah ee xabsiga, sababtoo ah waxay xiran yihiin dharka waardiyaha. Kooxdii IRA waxay u suurto gashay inay si buuxda u qabsadaan ilaaladaas harsanaa, waxayna fureen albaabadii ugu dambeysay. Dhammaan kooxda ay gaarayeen ilaa 38 maxbuus waxay ka baxsadeen xabsiga Mays. Inta ay ku sugnaayeen dibadda xabsigu ay dagaalamayeen, waxaa la sheegay in dhowr waardiye la dilay. Waxaa la tuhunsan yahay in xitaa sarkaal ka tirsan maamulka xabsiga uu ku dhintay goobtaas. Maxaabiista waxay joojiyeen baabuurta dadka shacabka ah ee bannaanka marayay, iyagoo qaar si xoog ah u kaxaysanayeen, waxayna u baxsadeen si rasmi ah. Sheekadani waa mid dhab ah oo ka dhacday xabsiga Mays ee waqooyiga Ireland sanadkii 1983, waxaana loo yaqaanaa The Mays Prison Escape. Baxsashadii ugu weyneed ee abid ka dhacday xabsi Yurub ku yaala ayayna ahayd. Baxsashada 38 maxbuus waxay ahayd dhacdo argagax gelisay dowladda Ingiriiska. Xabsiga sida adag loo ilaalinayay ayay hal mar ka wada baxsadeen. Gabagabadii, waxaan rajaynayaa in dhacdadan ay idin cajabisay. Ha iloobin daawada inaad like, share iyo comment siiso sheekada sad iigu dhiirigeliso inaan soo daayo sheekooyin dheeraad ah. Subscribe saar oo furo gambaleelka sad u ogaato markaan sheeko cusub soo dhigo. Ilaa kulankeena dambe, waxaan idin leeyahay nabadgelyo.